mahadsanid waa mahadsanid thank you waa mahadsanid bismillaahi raxmaani raxiim dadka sharafta badan ee karaamada leh ee reer awdal gaar ahaan magaalada boorame iyo dhammaan dadweynaha maanta fagaarahan isugu soo baxay ee caruur leh ee haween leh ee cirroolo leh ee sheekh leh ee shariif leh ee laga yaabo laba maalmood inaanay seexan oo hurdo dhinac dhigay hawsha qabanayeen ee cadceedda u taagan anoo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye iyo magaca murashaxiintaba aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr abaalkiina ma gudi karno hawshaa noo qabateen iyo soo dhoweynta kalgacalka waa ku mahadsantiin waxaa kaloo u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha kulmiye ee bariya galbeed dalkoo dhan maanta cadceeddaa taageerayana waa u mahadnaqayaa dhammaantood walaalayaal maanta halkanaa isku timaadeen iyo cadceeddaa taagantihiin iyo dadaalka waxa u muujiseen farriintaadna farayseen waanu qaadannay farriintaadna faraysaan waa maxay waxa koow ka ah in la helo dawlad dalkeeda u horumarisa waxa ka mida farriintiinna in la helo sinaan iyo cadaalad somaliland oo dhana waxa ka mida in aqoonta hore loo mariyo dhallintana shaqala'aanta looga dadaalo laga saaro reer boorama waxa u gaara waddada isku xidha lawicadda iyo boorama waddada intaan ka soo maray way yartahay dhalinyarada ka jeegtan ka soo maray intii aan noolaa noloshayda 30 sano horaan maray meel ceeshacada feedhaweyn xariirad meel anigii hooyaday aanu gaadhna kula jabin oo anaan maalma fadhiyin ma jirto amaan daad ugu helin dhibta ay leedahay iyo qoriga la turiya baabuurta waxa ku dhacana waa naqaanaa cashuurada yara toqoshiya u dhaxaysa saylac ayaanu habeenna seexanayn 30 sanaan malay ilaa anigoo carruurnimadaydi maskaxdayda ku samaysan tahay waxay noo ballana haddii ilaahay yidhaahdo waddada inaynu samayno ayaa laydin ballan qaadayaa maaha cod baanu kaga doonaynaa reer boorama maaha qarankaa u baahan dhibaatada leedahay baanu ognahay maaha wadda boorama ay leedaho boorama loo sameeyo saylac waa qaranka ummaddu inay isku xidhantaa wanaagsan haddii ilaahayna qorshaha iyagu wuxuu yahay tasaylac ka soo bilaabtay boorama marta ceer gaabayna ku xidhantay baran u gudubtay xadka gaadho anigu soconnaa waata inuu dalku isku xidhmo weyn dhinaca waddooyinka dhinaca maskaxda iyo dhinaca is-aaminaadda taasaynu xisbiga ku hogaaminaynaa oo farriintiinna ka muuqata halkan fadhida waxaa kaloo farriintiinna ka mid ah boorame waa magaalo buuraleeya xadkiina wuu ku dhow yahay khayraadka xagga baddu ka xiga intaasoo waddada ka dhaadhacda buuraha jiifto taa calexaydh ilaa iyo halkaa wad ilaa iyo taawada ku dhaadhacaysa walaalayaal kolba dhaqaalehaynu siduu yeelo waa khasab in boorama loo furo waddooyinka xeebaha taasi waxay ku xidhan tahay wadajirkeenna iyo in reer boораmow haddii dhulka abaaroobay oo roobka yaraaday oo xoolaha ay sii yaraanayaan waxaynu u baahannahay inaynu khayraadka badda ee ka buuraha dooranno farriintaaynu iska qaadayno ku heshiinaa waxa weeye dhulka qarankaa leh khayraadka qaranka xukuumaddaa soo saarta waa inaanay dhicin sida meelaha qaarkood ka dhacda marka le khayraadaynu soo saarno betrool macdan haddii aynu 4 nin intay tijaaraan waa meesha iyaday qori nagala hor yimaadaan dee hore mari mayno walaalayaal boorama waxay hogaamisaa ilbaxnimada dalka inaa ilbaxnimada dalka hogaamisaan oo saylac ka soo jeedaan iyo xadaaradii fogeedda waxaan idinku sheegayaa xalay markaynu soo baxaynay dhalinyarada hargeysa waxay sameeyeen wax foolxun waayo waa badow reer hargeysa oo la isu geeyo shirka intaa leeg baa isugu timaadeen oo xalay kii mucadare ahaa iyagii kulmiyaha idinka walaala ah ayaa fagaalaha isugu soo baxdeen dhalinyaradii hargeysa xalay waxay sameeyeen ceeb aanu ku cambaarayno aan ka aqbalayn gudoomiyaha wadani xisbiga wadani murashaxa gurigiisa ay shiideen waa badownimo waa diidanahay waa ka soo horjeedaa aqbalayno mayno inanka calaamada kulmiya sidee kulmiyaha nabad baa ku ogahay walaalayaal bifadlakum duruus ilbaxnimo u dhiga dhalinyarada ilfaca reer hargeysa ee madaxa shishiidaysa intaasaa ceeb ugu filan iyagana
حالي لما عاد بيسو شيدان دينا بريا هرقيسان حفيسان كرمية شيدان وحاسنا وعاب يبدنبو ديمقراطية الساماها إذن كانوا يذكبوا قادرين رمانتا فقارها مقالة النبوحية نمضى بصوب حدين هو هرقيسان 10 بورقتين ما دام أدلك البحرية كوه قابين إنسان وحانو يذكر رجالنا قرنك مركا أينو بلونو إن أينو قضنا أمام معدن أما بدا كالورو بحروه إن أينو دمانتا قعماس خبصنو ما هم من اسكنا عايو ما هم من بوبيو waxaynu ku shaqeynaa dawladdu hufan oo transparent loo arki karo waxa ku soo gabagabeynaya raa awdal iyo boorba maanta waa maantantiin iyo dhammaan dadka taageero dhamme waxaynu balana xil bayna saaran hada awdal aad hay maqasho maanta tijaabaynu ku jiraa hadaynu nahay Soomaaliland gobolada galbeedka xil bayna saaran ku yar iyo ku weyn xilkayna saaran waxa weeye waa koow لابا مشرحوا مدحوريه كحجينا او لبادوبا قبيليه بوربيه waa koow Soomaaliland oo waxay naga reey waxay ay asaaseen oo maamulo Soomaaliland oo waxay agaysaa hogaaminta galbeedka iyo xilku sii saaran yahay reeboraba waayo aqoontii waa sheegateen ilbaxi baa qaadateen Soomaaliland baa lagu asaasay calanka Soomaaliland muraadku si Cabdalla Kuseel baa sameeyay gurigooda halka yahay هذا قرك روح سبيعي حسن شيخ مومن شركوا ويانا حكنا لقوا قبتي شيخ علي جوهر سو معها بركة الشيخ عاشور بالرعية سو معها ما ترى محايد فوري قلبي ضوال ذلك وحديقنا سو معها صحينا مسارة